qofka xanuunsan 121 mar haddaad ku akhrido isimkan ama uu akhristo asaga naftiisu qofkaasi uu caafimaadayaa haddaan ajashiisiiyo muddadiisii la joogin ama xanuunka ayaa laga takhfiifinayaa baa layidhi aayaddaasana la raacsiyaa ku jirta suuratu yaasiin markii 121 la dhammeeyo salaamun qawlan min rabbi raxiim aayaddaasa la raaciyaa weeyaan waxaa kaloo soo aroortay nabiga hadda calayhi salaatu wasalaam ilaahay horta waa assalaam wey nabigana waa la salaama soo ma aha ilaahay asmaadiisana assalaam baaba ka mid oo annaga hadda ka hadalnay waxaa la yidhi nabi muxamed calayhi salaatu wasalaam qofkii yiraa maalin walba assalaamu calayka waraxmatullaahi wabarakaatuhu 100 mara 100 mar intaa nabiga qofkii maalin walba yiraahdo ku wardiya laa yaduuqu xaraara nabiga salaantiisa qofkii ku wardiya oo maalinkiiba 100 ka akhriya assalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmatullaahi wabarakaatuhu السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته معنى والبقول قفك كاخرية لا يذوق حرارة الموت ويسر أمره ولا يقع في عسر بإذن الله لا يذوق مدر دميو حرارة الموت موتك كليل كيس إيو لبكيس دمين ماي ويسر أمره أمر كيسنا وفضضان إياه ولا يقع في عسر بإذن الله وحريصة يدباطعنا كل عن ميو إذن كإلهي دباط إلهي لكل من ميو